wararka soo baxaya ayaa sheegaya in dagaalka ka socda dalka Itoobiya uu sababay jahwareer ballaaran oo gaaray guud ahaan gobolka waxaana wararkii ugu dambeeyay ay tilmaamayaan in ciidamada Itoobiyaan oo ka joogay gudaha Soomaaliya ay dib ugu noqdeen dalkooda kuwaasi oo la sheegay inay baritaarayaan ciidamada ka dagaalamaya waqooyiga wadankaasi ee ka qayb galaya dagaalka u dhaxeeya ciidamada qaranka Itoobiya iyo kuwa maamulka Tigreega. Arrintaasi ayaan warbixin kaga haynaa. waxa kale oo aan idin haynaa dagaalkaasi ka socda dalka Itoobiya waxa uu kale uu sababay in markii ugu horeysay la soo sheegayo in deegaano ka baxsan goobaha dagaalku ka socda lagu laayo dad rayida oo ay burcad hubaysan jidka u galeen gaar ahaan dad ku socday gaadiidka dadweynaha. wadamada Suudaan iyo Masar ayaa durbaba la sheegaya inay bilaabeen dowlatus military oo ah kii ugu weynaa oo ay sameeyaan tan iyo markii la riday madaxweynihii hore ee wadankaasi Umar Hassan al-Bashir. warbixinadaasi ayaan idin haynaa saaka ku soo dhawaada ha noolaato una diyaar garooba barnaamijka. aan ku bilaabay wararka la helayo ayaa sheegaya inay jiraan ciidamo Itoobiyaan ah oo laga daadgureynayo gudaha wadanka Soomaaliya kuwaas oo dib ugu noqonaya dalkoodii Itoobiya. waxaana la sheegayaa ciidamadaasi inay qayb ka noqonayaan dagaalka culus ee haysta dawladda wadankaasi Itoobiya ee ka socda waqooyiga wadankaasi ee u dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamulka qowmiyadda Tigreega. kumanaan askari oo joogay gobollo ka mid ah dalka ayaa la sheegayaa inay dhaqaaqeen iyadoo qaarkood inta badan ay baxayeen xilliyo habeen ah kuwaas oo la tilmaamayo inay dib ugu noqdeen wadankooda. lama oga tirada dhabta ah ee ciidamada Itoobiya ee jooga gudaha Soomaaliya maadaama ay kulligood ka mid ahayn ciidamada AMISOM. waxaana la sheegayaa in mararkii ugu dambeysay ay jireen ciidamo badan oo Itoobiyaan oo soo galay gudaha wadanka gaar ahaan qayb ka mid ah gobolka Gado kuwaas oo dawladda Soomaaliya uga dan lahayd inay ka taageeraan dagaalkii ay kula jirtay maamulka Jubbaland. wararka waxay intaa ku darayaan in ciidamada Itoobiyaanka ah la sheegay in ay gaareen qaybo ka mid ah bartamaha wadankaasi qaarkoodna ay sii socdaan. waxaana laga baqayaa sidoo kale in ciidamo badan oo Itoobiyaan oo wali ku sugan gudaha wadanka Soomaaliya ay jiraan walow aan la xaqiijin karin guud ahaan inta ay leekayeen ciidamada Itoobiyaanka ee soo galay dalka. dagaalka ka socda dalka Itoobiya ayaa la sheegayaa inuu sababayo arrimo badan oo bini'aadanimo ay ka mid tahay inay bilowdeen dad shufto ah ama burcad ah oo jidadka u gala gaadiidka. gobol ku yaala galbeedka wadankaasi ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay ilaa 34 qof oo saarnaa gaari bas ah oo ay la socdeen galbeedka wadankaasi. hay'adda qaabilsan xuquuqda insaanka ee qaranka dalka Itoobiya uu leeyahay ayaa warbixin soo saartay ku sheegtay in la dilay dadkaasi oo ku safrayay gaari bas ah kadib markii dad burcad ay jidka u galeen. arrintaas oo ay ku tilmaameen inay tahay arrin ka baxsan bini'aadanimada isla markaana tilmaamaysa in xaaladda guud ee nabadgelyada wadankaasi ay halis ku jirto. gobolka weerarkaasi ka dhacay ayaa lagu sheegay in magaciisa la yiraahdo Banishanguul waxaana uu ku yaalaa galbeedka wadankaasi Itoobiya. waxaa sii kordhaya dadka ka qaxaya gobolka Tigray ee waqooyiga wadankaasi Itoobiya kuwaas oo galaya gudaha wadanka Suudaan iyagoo habqan ah waxaana ay u badan yihiin sida la sheegay caruur iyo dumar iyo dhalinyaro. waxaana wararku sidoo kale ay tilmaamayaan in ay jiraan hay'ado ka mid ah beesha caalamka gaar ahaan UN-ka oo ka dayrinaya xaaladda bini'aadanimo ee ka dhalan karta dagaalka ka socda waqooyiga wadankaasi Itoobiya. Itoobiya oo lagu tilmaamayay inay ahayd wadanka ugu awooda badan gobolkan Geeska Afrika isla markaana ahayd dawlad guuna ayaa dhibaatada ugu weyn ee maanta haysato waxa ka mid ah in qarankaasi uu halis ku jiro iyadoo haddii dhibaato ay ka dhacdana ay saameyn doonto oo dadkeedu ay qarqin doonaan guud ahaan gobolka iyo guud ahaan caalamka. waxaana digniinta ugu badan ee la muujinaya ay tahay in xaaladdu ay ka sii dari karto marba marka ka dambeysa maadaama dadka wadankaasi Itoobiya ku nool oo 100 milyan gaaraya ay dhammaantood ama u badankoodu ay yihiin dad faqri ah oo xaaladooda noloshu ay aad iyo aad u liidato. sidaa darteedna dagaalkan uu sababi karo in majaaco ay ka dilaacdo gudaha qaxooti fara badanna ay ka qaxaan dalkaasi Itoobiya. warkaasi waxaad kala socotaan ha noolaato waxaadna ka daawanaysaan YouTube-keena ha noolaato iyo sidoo kale page-kan ku leenahay Facebook-ga oo aad mar walba kala socon kartaan haddii aad doonaysaan aad saaxiib la noqon karto haddii aad ka heshay waaye barnaamijyada aan idiin soo gudbino. ugu dambeynna dhoolatuskii ugu horeeyay tan iyo markii la riday madaxweynihii wadanka Suudaan Umar Hassan al-Bashir ayaa waxa ka qayb galaya ciidamada wadanka Masar iyo Suudaan oo iskaashanaya kuwaasi oo sameynaya dhoolatus socon doona ilaa 26 bishan.
waxaana dhoolatuskaasi lagu tilmaamayaa inuu yahay mid aad iyo aad u weyn oo ay ka qaybgalayaan gaadiidka dagaalka, diyaaradaha cirka iyo ciidamo aad iyo aad u tababaran oo ay leeyihiin labada wadan ee Suudaan iyo Masar. arrintan ayaa la sheegayaa sidoo kale inay ka dambeysay kadib markii dhowaan madaxweynaha wadankaasi Mareykanka ee hadda xilka sii dhamaanayo uu dalka Suudaan ku qasbay inuu ka cafinayo deyn badan uu ku lahaa, isla markaana ay ku bedelato in ay xiriir la samaysato wadanka Israel iyo sidoo kale inay wanaajiso xiriirka ay la yeelanayso dalalka saaxiibada la ah wadanka Mareykanka oo ay ka mid tahay dabcan wadanka Masar. arrintan ayaa waxaa sidoo kale aad iyo aad ay u saameynaysaa xaaladii gobolka oo ahayd in cabsi badan oo laga qabay dagaal dhex mara wadamada Masar iyo dalka Ethiopia ay hadda xaaladeedu u muuqatay inay meesha ka baxday. dhoolatuskaasi ayaa lagu fasiri karaa inuu yahay mid wax ka bedelaya xaaladii ka jirtay gobolka, gaar ahaan markay timaado cabsidii laga qabay inay dagaalamaan wadamada Masar iyo Ethiopia oo qarka u saarnaa inuu dagaal dhex maro. wadanka Ethiopia ayaa hadda dagaal gudihiisa ka holcaya oo aan hadda diyaar u ahayn arrintaasi, laakiin waxaa sidoo kale dhacaysa in Suudaan iyo Masar dhoolatuskan ay wada sameynayaan uu muujinayo inuu hagaagay xiriirkooda, isla markaana ay iska kaashanayaan oo ay isku garabsanayaan difaaca webiga biyaha Niil oo markii hore labada wadanba ay walaac badan ka qabeen. Ethiopia oo sameysay biyo xireen weyn oo saameyn ku yeelan karay beeralayda wadamada Suudaan iyo Masar oo ku tiirsan guud ahaan biyaha webiga Niil. haddaba maxay kula tahay xaaladda wadanka Ethiopia? ma isleedahay dhibaato ayay u keeni kartaa guud ahaan gobolka? mase isleedahay sidoo kale waxa loo baahan yahay in wax laga qabto xaaladda halka ay joogto haddii wax laga qaban karo inta aanay ka darin? guud ahaan barnaamijkii subaxnimada inta ayuu ku dhan yahay. waxaad kala socoteen Ha Noolaato. waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ayaan la Xuseen Cabdi. barnaamijkan waxaa soo saaray Mawlid Xujaale. intaynu mar kale kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa nabadgala. halkani waa Ha Noolaato. ku soo dhawow Facebook-eena oo like saar ama follow dheh si aad ula socoto mar walba wararka, warbixinada iyo sheekooyinka ku saabsan nolosha Soomaalida. mahadsanid. Ha Noolaato.